mudahaarado ayaa kasii socda dalka itobiya. boqolaal dada ayaa isku soo baxay wadooyinka magaalada waqooyiga ku taalla ee gonder iyagoo dowladda dhaliilsan. waxay qaadayaan halkudhigyo ay dowladda kaga soo horjeedaan mar ay isku gadaameen dhismaha maxkamadda ugu weyn magaaladaasi. waxaa jira warar sheegaya in booliska iyo mudaharadayaashaasi ay isku dhaceen dad ayna dhaawacmeen. axaddii hore ayaa kumanaan dad ah oo ku sugan magaalada gonder ee gobolka amxaarada ayaa wadooyinka iskugu soo baxay iyaga oo dhigaya mudaharaad naadir ah. haddaba dadka u dhaqdhaqaaqa qoomiyadda itoobiya ugu badan ee oromada ayaa ku baaqay mudaharaadka la mid ah, iyaga oo sheegay in ay diidan yihiin waxay ugu yeedhaan dilka lagu hayo bulshadooda iyo ku tumashada xuquuqdooda. qoomiyadaas ayaa mudaharaadaysay tan iyo bishii 11 ee sanadkii 2015. hay-adda xuquuqda aadamaha u dooda waxa ay sheegtay in la dilay 400 oo ruux tan iyo markii uu biloomay dibadbaxu. ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa isna dhaliilay dibadbaxa, wuxuuna sheegay inuu sharci darro yahay oo ruqsad loo haysanin. Cabdiraxmaan Ismaaciil Ducaale, Dayaxa Media.